burburkii dowladii dhexe kadib markii ugu horeysay waxaa maanta dekada magaalada Barawe ee caasimada dowladda Koonfur Galbeed ku soo xirtay doon sida shixnado kala duwan kana soo baxday magaalada Dubai ee Jamhuuriyadda Midoobay ee Imaaraadka waxaana doontan u rarneed ganacsatada deegaanada Koonfur Galbeed dekada magaalada Barawe ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye la taliyaha madaxweynaha duqa caasimada iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladan wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ayaana dadaal ku bixiyay in maanta markii ugu horeysay dekada magaalada Barawe ay ku soo xirato doontan ugu horeyn waxa goobtan ka hadlay Umar Sheekh Cabdi gudoomiyaha magaalada Barawe ahna duqa magaaladan isagoona sharaxay in maanta dekada magaalada Barawe ay ku soo xirato doontii ugu horeysay maanta waxaan joognaa xeebta weyn ee ama dekada weyn ee magaalada Barawe run ahaantii ay ku soo xiratay dad ganacsato ah deegaanadan Koonfur Galbeed ay ku dhasheen ay ku dhiirideen in oo maana magaaladan runtii maana ganacsigooda iyo qaab walba oo maana u noqon lahayd ay keenaan maana ganacsiga ugu xoogana oo doon oo runtii maana oo xariin ah oo weyn ah waxayna u keensadeen ganacsigii sidii caasimadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dikadeeda u shaqagal lahayd shaqo abuur maana dadka shacabka iyo deegaanada ay joogaan oo noqon lahaa dadka taasna ma haddaas waxa iska leh madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo runtii maana ganacsatadii heer Koonfur Galbeed oo ku wargilay in maana dikadii magaalada wax ka soo dejisan karaan oo waxna maana ka dhuufsan karaan ina u furantahay dikadan Soomaali weyne ee runtii oo maana rabo qof walba oo maana oo dikadan magaalada Barawe inuu wax ka soo dejisto iyo wax ka dhuufsadoba runtii taas waa ugu mahadcelinaa madaxweynaha waxaan kale u mahadcelinaynaa wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda asayna maana runtii wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda u istaagay sidii dikadan magaalada Barawe iyo dekadaha Koonfur Galbeed bay maana sidii shaqo maana ugu bilaabi lahaayeen wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye ayaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed uga mahadceliyay dadaalada uu ku bixiyay in dib loo howlgaliyo dekada magaalada Barawe isagoona dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa deegaanada Koonfur Galbeed ugu baaqay in ay maal gashtaan dekadan aan ku gaarnay inaan u mahadcelino madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen oo runtii ay ka go'an tahay marna inuu mana dekad ay helaan Koonfur Galbeed oo ballanteena ay tahay inaan sida ugu dhaqsida badan aan dekad ku dhisno magaalada Barawe runtii maanta waxaa noo suurta gashay dekad macaamil inaan dekada marka dhismaheeda aan bilaabi doono si aan alaabteena ugu soo degin xamar ama meel kale ama elabor loogu soo dejinin waxaan tusaale u soo qaadanay ama aan ku sameynay wax inaan alaab kala soo degi karno nooc kasta ay tahay runtii waa u jeedaan dekada waxaa joogo maaragtay doon weyn oo u dhiganto markab runtii markabna waa ku soo xigaa sida hadda annaga doontan markay timid haddana waa Barawe ahead haddana waxaan keeni doonaa insha Allah markab yaran ku soo Barawe doonaa oo maaragtay si oo alaabaha Koonfur Galbeed gaar ahaan Barawe alaabtan hadda u soo ay wado doonta alaab ku filan ma aha Barawe waayo alaabtan wixii Barawe ay u baahan yihiin Barawe lagu dejinaa waxa kale waxa la gaarsiin doonaa magaalooyinka kamid ah Koonfur Galbeed runtii Barawe maanta waa maalin cusub waxaan dhihi karnaa maalin cusub waayo mar dambe uma baahna wax loogu keenay ama wax dhul loogu keenay waayo ayagoo maaragtay Dubai joogan ama India joogan ama China joogan alaabtooda intay soo rartaan ayay keensan doonaan waana Ibraahim Maxamed Mayow idinkaga soo waramaya caasimada dowladda Koonfur Galbeed